السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا صاحب يال وحنا هني مراعدة تكنولوجيز وحندونا يا مانتا إن وربحين إذا كسيو هدو الله إن شاء الله تعالى لعجها كسو قرر الدنيا لو ما عاو كريبتو كارنسي لعجها هني مركي وريسي سو إفبحان أما محي هذه الدنيا كسو بيران وحي هاد لودكن يو سيدي lacagtii ugu horreysay oo lasoo saaraan waxay ahayd lacag bitcoin lagu magacaabo. Waxaa soo saaray nin isqariyay heybadiisa oo aan la garanin ilaa ay haddadan oo la magacaabo Satoshi. Ninkaas ayaa soo saaray. Lacagahani maxay yihiin marka? Lacagahani waxa waaye waa lacago oo digital ah waaye, digital currency waaye. Currency waa lacag waaye digitalna dee waa lacago aan la taaban karin waaye, kuwaas oo ku jiro boorsooyinka lagu keediyo maxay ahayd cryptoga, kuwaas oo aadan arki karin waaye. Laakiin saas oo tahay waa lacag wax ku goyso waaye, wax aad ku gadan kartid, dhul aad ku gadan kartaa, baabuur aad ku iibsan kartaa, maxay ahayd lacagahan kale ayaa ku bedelan kartaa. Marka waa lacago shaqeynayo functionality-gooda. marka lacagahani maxay ahayd noocaas ah way badan yihiin, hal nooc ma aha. Dhowr nooc ayaa jiro, laakiin nooca ugu weyn maanta jiro waxa waaye bitcoin waaye. Bitcoin maxay ahayd 2008 ayaa maxay ahayd dunida ku soo beertay bishii 11aad koodeedii. Meeshii ugu sareysay ee gaarto waxay ahayd $73,000. 2024 bishii saddexaad 14 ayay ahayd. Meeshii ugu hooseysay ee gaartana waxay ahayd 0.048 2010 bishii toddobaad 14. marka maxay ahayd lacagahani marka ahmiyadooda iyo hadafkooda waxa waaye ama waxyaalaha suurtageliyay inay noqdaan kuwo maxay ahayd ilaa heerkan faa'iido u leh. waxyaalaha sababay waxaa kamid ah inay yihiin lacag aysan controlin dowladda awood uma lahan, oo qofka aad doonaysa inaad u dirto ayaa toos ugu diraysaa. marka taas waa waxyaalaha ka qayb qaatay in lacagahani ay cirka aadaan. sidoo kale shirkadihii dunida ugu lacagta badnaa ayaa iibsaday, hadday ahaan lahayd Microsoft, hadday ahaan lahayd ninka Twitter iska leh Elon Musk. dhammaan dadka dunida ugu lacagta badnaa oo dhan way iibsadeen. oo taas ayaa marka waxay suuro gelinaysaa in maxay ahayd ay noqdaan kuwo qiimo leh, value leh. sidoo kale value-gooda waxa qiimaha u yeelaa waxaa kamid ah lacag walba oo la soo saaray yacni way xadidanta in go'an waaye. in go'an ayaa maxay ahayd tusaale ahaan oo kaleeto bitcoin-ka oo kaleeto markaan ka soo hadalno lacagta bitcoin oo kaleeto markii aan ka hadalno in xadidan ayaa maxay ahayd la soo saari karaa oo iskama soconayso. hadda maximum supply-geeda oo dhan waa 19.69 oo BTC waa oo milyan oo BTC 19.69 milyan oo BTC ah. intaas oo kali ah ayaa maxay ahayd la maximum supply-gooda marka taas marka waxay ku sababaysaa scarcity-gaas, yacni intaas maadaama ay xadidan tahay qiimo waxay u yeelaysaa ayadaas. oo hadda 19 milyan bis 69 BTC ah intaas ayaa laga iibsan karaa. marka taas waa wax sababayo inay yeelato qiimo, inay yeelato value, inay yeelato. waa sida dahabka oo kale waa gold oo kale. dahabka oo kale in xadidana la helaa sooma dunida, in xadidana taalo sidaas la mid ah. marka kana in xadidan oo kali ayaa la soo saari karaa. marka waxyaalaha qiimaha u yeelayo ayay kamid tahay. marka qofka doonayo marka inuu maxay ahayd ka shaqeysto ama uu doonayo inuu maalgashto sidee hab ku maraya kooda horeeto markii aad doonaysid inaad shay maalgashato waxa ku qasban tahay horta inaad shaygan aqoon u leedahay. waa inaad research suubisaa, baxthi waa inaad suubisaa cryptocurrency waa maxay yihiin, waa inaad aqoon u leedahay.
markaas kadib markii aad aqoon u yeelatid marka labaad waa inaa haysataa lacag waa inaa haysataa sheygan oo ku maalgashato sababtoo ah waa inaa gadataa sheygan free ma aha. Hab labaad waxaa jirta ayadana lagu helo cryptocurrency-ga waxaa lagu magacaabaa mining ayaa lagu magacaabaa. Mining-ka marka waa adag yahay aqoon ay u baahan tahay. Mining waxaa waaye inaa adiga ka qayb qaadatid tabcidooda soo saarkooda kombiyuutarro waxaa jiro mining-ka lagu suubiyo oo high speed ah CPU fiican leh. Kombiyuutaradaas marka maxay ahayd xisaabaada ka shaqeynaysaa reward lagu siinayaa abaalmarin oo crypto lagu siinayaa marka habkaasna ayadana waa lagu helaa. Markii aad crypto-ga aad soo iibsatid waxaa jirta meelo lagu keydiyo meelahaas waxaa lagu magacaabaa wallets ayaa la dhahaa ama boorso waaye. Boorsadaas marka maxay ahayd waxay kuu suurgelinaysaa inaa maxay ahayd crypto-gaada aad ku haysatid xagee laga gataa marka cryptocurrency-ga waxaa laga iibsadaa exchanges-ka. Exchange waxaa la sariflayaal sariflaha marka laba mid uu noqon karaa ama loo kala noqon karaa oo nin aad garanaysid oo ama nin aadan garanaynin oo loo kala Soomaaliya oo kala ka iibsan kartaa ama maxay ahayd wuxuu noqon karaa inaad kasoo iibsatid internetka online-ka kaarka bangiga inaad ku iibsatid. Labadaas hab ayaa loo iibsan karaa kadibna wallet-kaada ayaa gashan kartaa. Kasoo qaado kaleeto cryptocurrency 2010 hadaa iibsan lahayd maanta Bitcoin wax $1 ka yarna aad ku gadan lahayd maanta halkii Bitcoin wuxuu ku noqon lahaa $73,000 10 xabo ka mid ah hadaa iibsan lahayd ka waran. Marka cryptocurrency-ga mustaqbal waaye marka qofkii doonayo inuu maxay ahayd maalgashi uu suubiyo maalgashina waxaa la dhahaa investment waxaa la dhahaa wax aad ka maarmi kartid yacni lacag aad maalgashi ku suubinaysid 10 years 7 years 6 years oo aad faraha ka qaadi kartid laakiin lacag aad u baahan tahay marna waxa gelin sababtoo ah cryptocurrency-ga risk waaye. Sheygii maanta maxay $73,000 sheygii joogay Bitcoin aheyd maanta ma joogto maanta 60,000 ay joogtaa $13,000 ay soo dhacday sidaas si lamid ah waxaa suuragal ah inay sii dhacdo 20,000 tagto ama $10,000 inay tagtaa suuragal ah. Marka waa volatile waaye lacagahan volatile waaye yacni lacag zaid u dhaceysa waaye ama zaid cirka u aadaysa ama zaid hoos u aadaysa marka waa inaad gelisaa lacag aad ka maarmi kartid waa inaad gelisaa lacag oo mustaqbalka dhow aadan u baahnayn waa inaad gelisaa marka khayr badan ayaan rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.